marka xafladda aan tagay waan duubay dadka marka ka soo horjeeda xafladda in la duubo waxay ku talagaleen in uusan warka asaga bixin isla markaana ay ka hortagaan inuusan warka bixin marka askar baa lacag la siiyay waxa la ninkaas dila wabiga maaragtay taan riifa ku rida qisada hadda korka ma sheekeenin waxa dhacday marka in waliba xilli waxay ahayd amniga wadanku aad xilliga jaamacadda Gaaris la galay oo aad la isku raadsanayay oo qalqal badan u jiray marka nimankii mucaaradka ku aanin kala dooranay anaga wax ma sameeyno inaan warka bixin warka aan duuba inuu san bixin oo san hawada gelin bay marka waxay u sameeyeen askar lacag siiyeen 150,000 ba askar la siiyay marka waxa 150,000 lagu siiyay in intii la idilo wabiga lagu rido waagaana dadka intii la qaada la weyni jiray aragti cudoon idin ahaantiin bajaalayaal ku soo dhawaada bandhiga la qaayay oo caawa martii noogu yahay maxamed baaruud xuseen rogcada saxaafadeed samafale dad badan noloshooda badbaadiyay isla markaana aan waayo badan ka soo wada shaqeynay warbaahinno kala gedisan oo ay ugu horeeyeen warbaahinta Star Media oo la isku yiraahdo Star FM iyo STN baaruud intuu caawa barnaamijkan oo hawada ku jiro wuxuu naga warrami doonaa sooyaalkiisa qofeed iyo waliba waayihii uu soo joogay maxamed baaruud xuseen soo dhaw saaxiib waa ku faraxsanahay aan sanado badan kadib kulanno axmed saab axmed laqaay aad u maasantay saaxiibow oo ku faraxsan anigana inaan mar kale soo hor fariisano inagoo isla soo caweynay isla soo jabnay ilaa xilli fog abaaran kala maqnayn ما شاء الله كل واحد سديد تدوسون هدنا ندي بسكو aragno ما شاء الله هذا فرحان هاد قال بينو tahay waayahay inta in barnaamijka sii guda galin dabcan inta badan daawadayaasha dhageystayaasha waxay u maqal jireen maxamed baaruud ama codkiisa ama muuqaalkiisa bal waa kuma maxamed baaruud waa miskiinkan idin hor fadhiya waana nin inta badan noloshiisa ku soo qaatay deegaanka Dhadhaab iyo ismaamulka Gaarisa waxbarashadiisii shaqadiisii ka soo bilaabay gaar ahaan dhanka saxaafadda oo 10 sano uu soo dambeeyay ku jiray waxaana marka qof shakhsiyadiisa inta badan uu maxamed baaruud la dhaho codkiisa maqashan marka waa hawkaas si fiican waayahay bal hayaankaagiisa yani waxbarashada iyo halka uu ka bilowday waxbarashada inta badan wuxuu u badnaa iskuulada deegaanka Dhadhaab inkastoo Gaaristan aan soo maray marka iskuulada badan aan soo maray ilaa ay marka dambe ay saxaafaddu ayna keentay si fiican waayahay dabcan saxaafaddu waayo badan baad ku jirtay bal haddii aad inoo bidhaamiso geedigaagii saxaafadda iyo halka uu ka soo bilowday ma deegaanka aad ku noolayd buu ka soo bilowday mise asalkii dalkii uu ka soo bilowday ama deegaan kale uu ka bilowday bal inoo bidhaami isaguna niyo saxaafadda anoo yar baan jeclaa caruurnimadeydii xilliga iskuulka anoo xitaa waxbarasho aan gaarin oo yar baan iska xiisan jiray waxayna ka soo bilaabatay saxaafadeyda xeryaha qaxootiga ee deegaanka Dhadhaab iyo ismaamulka Gaarisa waxaana ku bilaabay markaan saxaafadda bartay kadib anoo barashadeeda ku jira haddana waxaan bilaabay inaan la xiriiro la shaqeeyo dadka wariyaasha ah gaar ahaan markay dad freelance ka imaadaan wariyaasha oo meelaha kale ka soo safra markay imaadaan inaan la shaqeeyo qofka wariyaha aan aad u daba socdo shaqadiisa aan la qabto u diyaariyo dadka ay wareysanayaan fikradihii iyo meelahay tagayeen anoo wali arday saxaafadeed haddana aan iyaga la sii qabsado marka halkaasaan ka soo bilaabay waana xiisayn jiray qofna saxaafadda ayada xiisayso qofna isaga xiisay marka saxaafadda ana xiisayn jiray ana hobbigeeda ahayd iyo maaragtay rajadeyda geeda dheerna oo soo fuulay alxamdulillah marka waan meelahaas ka soo bilaabay waayahay maxaa la isdhihi karaa maxamed baaruud uu ku doortay saxaafaddu iyadoo yani ay jiraan xirfado kale oo lagu shaqeyn karay midda koowaad waxaan malaynaya waa war jecel waa warka inaan warka kaga bogtaan rabaa u malaynaya midda kale waa xirfad aniga shakhsiyan ilaa haddana aaminsanahay inay tahay dadka ka shaqeeya iyadaba inay tahay meel xirfad sharaf leh cizi leh inkastoo qofku soo iska dhiga ay tahay haddana waa xirfad aan dhihi karo aniga waxaan ku doortay inay wax wanaagsan tahay حتى نقول نفس الوادكس. وياه. بل عدي أدنى بدأمسو قوي كلا جد سنة وربعين إذا أتكسر شقيسي عدي بشدوا أدنى بدأمين كلا. نيهو صحافته عن كسر بلوني وحلا هاي أنا قرنه وحيالي ويب سايت كل يجري. إذا حتى إذا عادوا هاي وضع كان كوي راين تلفزيون ذا يراين أنا ويب سايت وحكو قرنه ويب سايت له الدنوا ويب سايت كلا دو حكو صغور جرني
kadib haddana idaacada loo kala hoo sida idaacada Risaale FM loo dhaho mid kale oo la dhaho maaragtay idaacado adig inta badan ka shaqeeya wadankan waxaan inta badan laakiin saxaafadeeda inta badan kusoo jira warbaahinta istaa oo adilta ka soo wada shaqeynay min idaacad loo kala ilaa iyo TV-gi oo arag iyo maqalkii ahaa way jiraan TV-yaal kale oo aan ka soo shaqeeyo oo si qaab kala duwan aan inkastoo muddo ka kooban ahaan sida maaragtay Somali Cable oo kale markii dambana idaacada VOA ayaa nalagu doorxay hadda markii u dambeysay oo Trump uu xirayo 2-3 sanad u dambeeyay la shaqeynay BBC waan si yar freelance ahaan oo maaragtay aan toos ahayn waa la soo shaqeeyay marka si dadban kuwa la shaqeeyo jiraan si maaragtay tooskana meelahaas ka soo shaqeeyay marka waxa la dhigi karaa waxay ka soo bilaabatay yani qaybtii digitalka soo bilaabatay waayahay dabcan xirfad walba markii la barto lagu biiraa dhibaatooyin bay leedahay baruud muxuu kala soo kulmay saxaafadda koowdii markuu soo biiray ni horta aniga caqabadahan kala kulmay waxay ahayn kuwa aan ku talagalay adiga shakhsiyan aan ku talagalay sababtoo ah waxyaabihii ugu darnaa ama aan isdhihi karo caqabadaha waxay ahayn garab fiican ma helin sababtoo meeshaan ka soo bilaabo saxaafadda warbaahin kuma yaalin saxafiyiin rugcada iyo xitaa saxafiyiin bilow ma joogin waxaan filayaa dadka ugu horeeyay bilbilaabay saxaafadda barashadeeda iyo ka shaqaynteeda xiriyaha qaxootiga oo dhadhaab oo kale in aan kamid ahaa ama aan kow ka ahaa marka garab qabasho haday tahay wixii practicalkii iyo maaragtay meel kale ma jirin laakiin waan ku talagalayo aniga oo niyo u haya ayaan maaragtay ayaa la koobsaday marka caqabado way jireen sida qalabkii isgaarsiinta kale sida internetka iyo aaladda la isticmaalahayay iyo qaabka maaragtay loo sameynayo story kale iyo dadka oo maagaan ka dhex shaqeynayna saxaafadda ku dhex bilownayo laftooda warbaahinta ka hadalkooda aan ku dhiiranayn oo caqabado badan ka jireen gaar ahaan xiriyaha qaxootiga aan ka soo bilaabay restriction badan ay jireen caqabado badan oo saxaafaddu inta badan dadku iska meel go'doon ay ku jireen in laga hadlo kuwaysa baraarugsan qofka saxafiga inuu hadlana de caqabado badan iska jira marka way jireen wasi faafahin doona laakiin waxaan dhihi karaa waxay ahaayeen aan ka soo dabaalanay waaya dabcan waxaad ku dhaxan nooleed yani dad qaxooti ah soo barakacay yani dalkooda ka yimid dalka la meengeli u joogay markay arkaan dadka saxafiyiinta yani sidee mataqaana yani ula falgeli jireen ama yani ay u arkeen qof saxafi oo mikrofoonkiis wato ilaa waayadii hore camera ma aysan jirin inta badan waa un recordradii yaryaraha cajalada la gelin jiray iyo howlahaas oo kale bal ka waran sidee kula macaamili jireen dadku waayadaas aad bay u adkeyd inaad qofka fahansiiso xaqiisa ka hadlo oo aad u ogaado in wixii dhibay uu sheegahayo uu sheegan karo meeshuu adeeg ka helay uu heli karo ciddii maaragtay ka cabanaysa iyo maaragtay uu sheego way adkeyd waaga hore maadaama saxaafadduna ku yareyd dadkuna aysan la qabsan inay saxaafad ay la hadlaan garan ku xiriyo dad soo qaxay oo soo barakacay oo fikrad badan ba haysanin oo qaarkood baa u arkaba inay dacwo tahay lagu dacweynay haday ka hadlaan biyo la'aanta iyo waxbarashada iyo hooy la'aanta iyo masquulaha iyo adeega liita ama ay laayihiin haday ka hadlaan qaarkood waxay u maleynayaan in la xiriyo cabsi badan ay qabeen marka waqti bay qaadatay mararka qaar waxa dhici jirtay in qofka aad tashkiiliso maalin dhan kugu qaadato inaad qofka aad soo baahida haysa inaad kala dhiciso inuu waxaan ka hadlo inaan wax dhiba ka soo gaarayn mararka qaar wuxuu ku dhihi yaa hadduu wax soo gaaro yaa damiiniga ah dadku waxay aad u aaminsanayeen hay'adaha oo kaleeto sida UNHCR oo kaleeto oo dhaatadoodan haysay laakiin dadka saxafiyiinta waliba markaas ku cusbaa caqabado runtii waxay ahayd inkastoo Soomaalidu ay dad wax fahmayeen oo marka dambaysa ay soo hagaagayeen haddana marka rabtina war duubto waa inaad u tagto ruux ku garanhayo oo dadka kula taga oo qofkaas ay aaminayaan maadaama adiga aysan ku garanaynin marka caqabado badan bay caqabadaha ugu darnayd oo dad bulshada kala kulnay laakiin waqti dambe waxay noqotay wax la qabsadeen dabcan gaadiidkan hadda sida gaarka loo wato iyo gaadiidka yar waxaan dhan ma jiri jirin waxaan ogeyn basas weyn ay shaqeyn jireen bal ka waran isu socodka soo ah tusaale haddaan rabo inaan dhexda ka soo baxo waana madax xagar dheer oo faafi ah yani isu socodka xiriyaha soo ah marka baaburta aad u yaraayeen inkastoo socodka laftiisa aad u yaraa waxa xusid mudan markaad tusaale ahaan aad rabto inaad war doonto xitaa in aadan ama mooto ama bajaaj ama gaariyaashan hadda dhaweeyaha heerka aan la helayn waagaas oo laga yaabo intaad
baabuur rakaaban hayo oo caasi aad gasho 2 saac subaxnimo inuu 5 saac ku gaaro intuu ka buuxsamayo kastoo waaga raqiis oo 20 shilin lagu raacayay ilaa 50 shilin marka dambe haddana waxay ahayd caqabad jirta oo aad iyo aad laga yaabo in aad warka ka gaaro weyso aad wadab dhacdo haddii aad u socoto wax degdeg waxaan ognahay in xiriyaha qaxootiga qofka naftoodu ay aad ugu adkayd baa helidda anteenada sidee warka soo gudbin jiray aad u yareed mararka qaar intii la cajil lagu soo rido ayaa Nairobi loo soo diri jiray inta badan laakiin anigu xilliga iyada ah waxa soo gaarnay xilli intaan scriptiga diyaarino aan qofka editaha jooga Nairobi ama qofka meesha kala joogo aan intuu naga qabto cod qabadku intuu naga qabto mixerka noogu saaray aan ku duubno telefoon oo uu ka dhageysto qofku intuu dhageysto aad warkii boobsiiso xigashadiina meesha ku shabto hadhow marka codadkiisi oo maaragtay la isku geegeeyo marka caqabad bay ahayd in isgaarsiinta aad u yareed kombiyuutarradii iyo qalabkan xitaa wax lagu edit gareynayo software aad u yaraayeen alaabtan xitaa hadda wax lagu record gareeyo oo digitalka ma jirin baashi wareegaysay oo intii lagu duubo marka qaar memoryada la soo dhiibi jiray marka caqabado badan bay ahayd طبعا دي warar barnaamijyada soo tibin jirtay dadna way farxad gelinaysaa dadna ma farxad gelinayso bal ka waran ma jireen wax dhibaatooyin iyo caqabado aad kala kulantay wararka iyo barnaamijyada aad soo tibin jirtay waxa kamid ahayd mid tusaale wanaagsan waxa jirtay mid la igu talagalay in lagu dilo assassination lagu sameeyay isla markaana waxa ka qayb galay xaflad lagu caleema saaray mid kamida dadka nabadoonnada ah oo hoggaanka dhaqanka ah oo Soomaaliyeed hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed mid meel lagu caleema saaray marka aan ma ogeyn ninka dadka caleema saaraya oo qoyskiisa ah qaar kamid ah ka soo jeeday ku caleema saaray kuwa kale ka soo jeeday marka xafladdan tagay waan duubay dadka marka ka soo jeeday xafladda in la duubo waxay ku talagaleen in uusan warka asaga bixin isla markaana ay ka hortagaan inuusan warkaa bixin marka askar baa lacag la siiyey waxa la ninkaas dila wabiga maaragtay taariifa ku rida qisada hadda korka ma sheekeenin waxa dhacday marka in waliba xilli waxay ahayd amniga wadanku aad xilliga jaamacadda Gaaris la galay oo aad la isku raadsanahay oo qalqal badan u jiray marka nimankii mucaaradka ku aanin kala dooranay aniga wax ma sameeyno inaan warkaa bixin warka aan duuba inuusan bixin uusan hawada gelin bay marka waxay u sameeyeen askar lacag siiyeen 150,000 ba askar la siiyay marka waxa 150,000 lagu siiyay in intii la idilo wabiga lagu rido waagaana dadka intii la qaada la weyni jiray dad badan baa sidaa ku maqan leesmana weydiin jiray marka nasiib wanaag tayda ma gelin fal aad iyo aad wuxuu ahaa runtii ana saameyn iyo wala nolosheeda niman dhar cad ah oo aan wadanin dharkii askarta oo bastoolada iyo wata maaragtay qalab kale ayaa gaari soo qaatay maaragtay caadi oo gaari shacab oo number iska caadi leh way la soo xiriireen markii hore waxay dhaheen waxaan ka soconaa guddiga warbaahinta dalka loo yaqaano Kenya Media Council marka waxaan rabnaa tababar baan ku leenahay Gaaris tababarkaas bari uu bilaabanay muddo isbuuc soconaya marka waxaan rabnay maadaama adiga dadka saxafiyiinta ka mid tahay in bal qaabka tababarka iyo mowduucyadan isla qaybsan wayna jiri jirtay tababaro la siiyay saxaafadda oo Kenya Media Council iyo hay'ado kale ay siiyaan marka waxay u ballamiyeen inaan aan ugu imaado hotelka Nomad sifa aan uga wada hadalno training bari bilaaban doona iyagoo sidoo kale iga codsaday inaan u soo gudbiyo liista qaar kamid ah wariyaasha liistana noo keenay dhahan adigana noo imow waa imaaday gaariga soo qaatay gudaha galay nin saaxiibka la socday gudaha markaan galay ayaa markaas wuxuu dhahay banaankan jooga marka banaankan joogna ku soo bax marka inta soo baxay waa la calaamadisanay markaan soo baxay ayaa waxa gaari taxi ka soo dagay 4 nin oo aad xoog badan oo midkoodna aan wadanin uniform iyo maaragtay wax lagu aqoonsanayo marka waxay u dhaheen anaga waay nin kale wuxuu dhaheen anaga waay waxaan nahay dad dawladdan aad iska baxay ku dhaheen yarka kula socday ninka marka anoon jawaabin uu tagay waa carray ninkii la socday waqti furay ninka markuu carray
aniga waan meeshana tension badana dad badan markaa ma taagnin inkastoo irida number qof garana markii la sii galay gacanta bidix meel oo waxay haystaa hotel kortiisa marka wuxuu dhahay waxaan nahay nimanka askar baan nahay waxaan rabnaa inaad gaariga soo gasho marka waan diiday inaan gaariga galo gaariga watay waan diiday inaan galo way la xarbiyeen 4 nin inta marka xarbinaynay oo aan aniga diidanaa meesha inaan galo dad baa soo baxay marka iyagoo tension ka baqahay ay dhaheen gaariga kala gal gaari irida meesha marahayo oo u yeereen ay taxi gal 2 nin baa ila galay 2 nin gaariga wadeen marka waxaan ku dhahay aniga waxaan markaa ugu talagalay hadii la idilahayo in gaariga dhexdiisa oo meel la arkayo lagu dilo marka dad baana soo fiirfiiriyay wixii tension bay noqdeen way arkeen mishiga marka qaybta koobaad waa fashilmaa marka waxay dhaheen waxaan ku dhahay dad askar tihiin idin ma garanay askar tihiin uniform ma qabtiin baajkiina ma garanayo ma arkin waxaan ku dhahay station nagii hadda dacwo qabtaan dood dheer kadib markaan ka soo baxnay nomad oo aan station ku soo soconay oo aan station soo aadeen marka bariga soo aadeen waxay dabcan inay team jidkan soo aada dhanka countiga bidix u leexanay booliiftiinaadeen ku leexdaan tiiba marka waan qayliyo gaariga furaan isku dawnay markaan qayliyo gaariga albaabka qaraaco ninka darawalka uu joojiyay gaariga marka waxay ku qasbanaadeen inay tii askarta ay ku laabtaan nasiib wanaag meesha askartan tagnay meesha askarta markaan tagnay ninkii marka wuxuu ku fiicnaa ninka cararay wuu qayliyay waa reerihi wacay xafladuna xaflad weyn oo dad badan maalin ka soo qayb galeen bay ahayd marka aniga oo meesha ku jira oo weli ay ku tashan hayaan ay ninkii mishinka u weynaa uu leeyahay sidan ma ahayn saan iskumaan ogeyn ninkan aad inta keenta ma ahayn waan fashilanay ninkii ani soo mishimin oo telefoon ku soo hadlayo uu leeyahay ninkii ma disheen maxaa dhacay durb waxaa imaaday gurmadkii dadkii arinta maqlay oo dad culimaa iyo dad siyaasiyiin ku jireen oo stationkii dhahay bal horta meesha aan ku hormarin waagaan qofka hadii mar la qaado lama arkayn marka waan ka badbaaday marka sheekada marka fashilantayna waan ogaaday inay sheekada laga wada laakiin alxamdulillah waxba ma gaarin taydina ma gelin marka taasa kamid ah marka way jiraan caqabado mararka qaar ama bulshada lagala kulmahayo dhinacyo kala duwan oo si maaragtay si una u taabanayso sheekada dabcan war wala joojin kari laakiin naf in la gooyay looma maahan wallahi waa khatar waxay isdhahan oo maleynaya xitaa haday soo wacaan oo dhihi lahayn warkaas xitaa isku maraacsanin ama ay beenayaan qaab badan oo markarin ba jiray laakiin waa un ku talagal ka fashilmay oo ahayd inay nafta dhaafiyaan intuu warka bixi lahaa waaya barud warbaahin in laga shaqeeyo fudud culusta warbaahin in laga shaqeeyo culusta sababtoo waa khatar markasta khataraad ku jirta war kasta oo aad sheegto axmedow qofna uu ka farxin qofna uu ka nixin marka qofku warka ku farxaya adi waxba kaama qusay waxba kuma yeeli karo waxna kaama goynayo asagu baa farxay laakiin midka warka dhibsaday cadow buu ku noqonaya waxa jirta wax la dhaho saxaafadda saaxiibka wax kuma yeelay cadowga iska ilaal macnaha cadowga ayaa badan saaxiibka saxaafadda iyo cadowga saxaafadda badan marka markaste in laga shaqeeyo waa adigoo ku dhex jiro dab labada dhinac dab kaaga shidan yahay oo aad ku dhex jirto intan uu ka soo hulcayo khatarteeda garanaysa waaya maxaa farqiga u dhaxeeyo in idaacad laga shaqeeyo ama in TV laga shaqeeyo waxa aad u khatar badan in TV laga shaqeeyo TV-gu waxa weeye cid kasta ku baranaysa cid kasta ku arkaysa waxa weeye qof aadan weliga ku arkin meeshii aad joogta aan joogin meeshuu joogana aad joogin baa waxa weeye la ku baranay marka waxay noqonaysaa waa adigoo maaragtay dhar la'aan suuqaas marado cid kasta ku arkaysa marka waa fashilanta waa takooranta marka tan idaacad waxa laga yaabaa in qofku meel public markaas uu maatan codkaad u gar laakiin TV-gu waa adiga oo meel banaana taagan marka TV-ga aad qatar badan waaya dabcan waxaad ka sanado badan ka soo warramaysaa ama aad ka shaqeynaysay degmooyinka Faafi iyo Radaab oo inta badan ay ku nool yihiin xariyaha qaxootiga dadka yani qaxootiga ugu badan bal hadaad wax nooga baraabto waxyaabihii kugu adkaa in mataqaana yani aad ka soo martay tabinadooda bal hadaad wax nooga bidhaamiso waxay ugu darneed xilliyada ay dadku
barakacyaasha imaanayeen gaar ahaan 2011 oo aad arkayso qof hooyo adigoo la taagan ilmaheeda u gaajo nafta uga baxayo waxaan la kulmay waagaas hooyo tiri aniga iyo 4 caruurta ah waxaan soo sahayno oo soo cunay hilibkeeda soo cunay gabar aniga aan dhalay oo 6 bilood dhiman oo 6 bilood dhalan markay kuwan iyo aniga aan gaajo u dhamaanay wax kale aan weynay gabadhiiba waxay tiri naftu qabatay hilibkeeda aan cunay tiri waxa macquul waa xilli ay dadku maalinkii 10 20 u dhamaan hayeen xilliyadii macluusha 2011 oo dad maalinkii 1500 qaxooti ay soo galeen tirada si ay UNHCR sheegtay marka waxyaabihii ugu darnaa bay ahayd waxaan kaloo aad runtii uga xanuunsadaa oo saxaafadda ii dheer aniga arrimaha bini'aadamnimada qabtaa waa gari doonaa marka dhibaatada dadka haysa iyo baahiyo mararka qaar aad wax ka qaban karin iyo culeysyo adiga iyo dadkaaba ka weyn markaan arkana runtii caqabada weyn iyagu tahay waxyaabaha ilaa hadda xusuusta waxaa kamid ah markii dowladdu ay dhahday xiriha waa la xiri qaarkood la xiray 2 xiro kale la xiray 2018 iyo 17 sida Kaabi Caws iyo Ifutuo kaleeto cabsidii iyo walwalkii iyo su'aalihii dadkana weydiinayeen iyo waxay ahayd lafteeda arrin aad u adag oo xilli waxay ahayd qaxooti aad u adkeyd dabcan dadku markay qortaan inay dib u noqdaan dalka ay ku noqdaan haddana waxaan la soo tabiyaa dad cusub haddana yimaado qaarkoodna ay dib ugu soo noqonayaan waxay tahay yacni sababta ay ku dooran karaan marka xero qaxooti oo lagu sheegay inay xabsi kor ka biidan tahay oo qofka ka doorbiday dalkiisa qofka noloshu meesha u joogo markay ku adkaato naftu waxaa la yidhi orod bay aamintaa wuxuu dhihi ama meesha aad ka imaatay ku dhaantaa haddana markuu tago meeshii xaalado amni waxbarashadii oo ciriiriya adeegii halka lagu heli jiray oo yaraa markuu waayo wuxuu haddana soo micin bidahay meesha uu ka soo tagay marka waxaa arkaysaa qoys sanadkan laabtay sanad kala soo laabtay jidkuu kusii jira markay sahaydii yareeda la siiya ka dhammaato haddana gadaal bay usoo laabtaan qaarkood waalidka waxay u baqaan caruurtooda oo laga yaabo inay gacanta u galaan kooxaha maarka iska soo horjeeda wadanka jira wayna dhacday marar badan qaarkood xitaa caruurtu markay waxbarashadu waa inay tahriibaan halisaha noocaas caruurtooda u baqaan usoo laabta marka waa culays jira marka duruufo jira awgeed bay usoo noqonayaan waayahay inta badan markaad wareysato suxufiyiinta ka howlgala deegaanadan Dadaab iyo Faafi waxay ku sheegayaan in hay'adaha samafalka ama gacanta ku hayo aysan mararka qaar ogolayn in isu dheelitirka sheekooyinka oo kale yani tusaale dadkii qaxootiga markay cabasho muujiyaan inay ogolayn mararka qaarna saxafiyiinta aysan inay la kulmaan ogolayn barka war ayadoo taas caqabada hay'adahan iyo saxaafadda kala haysata muddo badan bay soo jirtay laakiin hadda sidii hore way dhaantaan 2-3 sano ugu dambeysay waxay u dhaantaan hay'adaha dan u arkay inay saxaafadda isticmaalaan hay'adu waagii dhaqaalaha haysteen ay buuxeen dhaqaalo ku filan la haystay saxaafadda iridooda inay ka soo galaan maysan ogolaan warna maysan jirin albaabada ka xiran jireen laakiin dhowrka sano hadda dhaqaalihii hoos u dhacay ayagoo faan ku raadinaya oo dhaqaale ku raadinaya saxaafadda maarka isticmaalayaan oo raba in baahiyaha jira la gudbiyo adduunka loo gudbiyo marka caqabad badan bay ahayd saxaafaddana umaysan furfureen hay'adaha waaga hore laakiin idaacada loo kalo hay'adaha la shaqeeya marka la sameeyo sida idaacada gargaar kaleeto hay'ado badan baa ku soo dhiiriyay inay meesha imaadaan bulshada baahidooda maqlaan su'aalo dadka soo weydiiyaan markii loo fiiriyo dhowr iyo 10 sano ka hor oo kaleeto xogo waxaa jira isfurfurnaana jiro hadda ninka hay'adda head of operation UNHCR u weyn baa imaada saxaafadda ay la hadli kartaa oo xafiisyada imaada halka waaga hore xitaa qofka waardiyaha ka ah oo mamnuuc ah inuu soo daayo qofka wariyaha inuu la hadlo iska daayo oo in Nairobi la soo maro Geneva email loo diro wax adag oo culus bay ahayd laakiin hadda waxaan filayaa digitalkan faraha badan iyo social media lafteeda wax furfuro mararka qaar waxa arkaysaa clip yar oo la duubay hay'adii oo leh clipkan waxaan rabnaa dadka in la ogaado hal tusaale wanaagsan waxaan rabaa waxaa jirta xilliga baahanihii 2016 bay joojisay dawladda Kenya inay diwaan geliso qaxooti cusub wixii waa ka dambeeyay haddana qaxooti maalin kasta way soo gali jireen way fara badnaayeen dadku waxay noqdeen marka inta diwaan gashan iyo inta aan diwaan gashaneen tira ahaan way isku dhawaadeen hay'adii waa laga dhaadhici waayay marka dad iyo dawladdiiba qaybteeda u qaabilsan diwaan gelinta qaxootiga diyaar waa laga dhaadhicin waayay inay dadka diwaan geliyaan waqtiga qaadatay waxaan ustaa 2020 iyo kowdii waxaan tagay Buulabaqti duleedkeeda meel ay dadku deegaameysteen xilli bisha Ramadaan shanteeda ah
bulbaqti si faafayis bulbaqti waxay ku tahay xerada qaxootiga Dhagaxley waa xaafad kamida xerada qaxootiga Dhagaxley waa xaafad la degay sanad 2011 waa qaxootiga faraha badnaa hadda ka sheekeynayna dhibaatada haysatay ay soo degeen waa meel ka baxsan xerada Dhagaxley laakiin si loo degay iyadii Dhagaxley isku darsamteen marka magacaas caan ku tahay marka dad meesha barnaamijkeeda si dogo aad u fara badan oo rafaadsan baan bishii Ramadaan taariikh 5 ayadoo ah yaa u tagay dad baahana ah oo rafaadsan sheekadaas Axmed oo garaalo markaan soo xusuusta sheekadaas waa ilmaya hooyo waayeel ah oo 90 ama 87 sano jirta ayaan wareystay oo sooman hadalkii hooyadii tiri iyo dad kale oo waayeelo meesha joogay baa marka waa la ilmay waxay tiri shalay ma waxaan ku afuray ma helin biyo ayaan ku afuray caadi ah waxba lagu darin xalayna shaabigaysa oo sokor fiican lahayd qof maama dariska ay keentay ayaan ku soxortay inta maamada aan la hadlay su'aasha markii istaagay ka dhacday waan garabka soo qabtay wax ii sheegtay inay hadli karo waa ii miidaartay marka su'aal baa weydiiyay waxaan ku dhahay hadiiba aad kaajo la dhacayso aad waxba haysan qof weeyna aatay ma iska afurtid waxay tiri intii aniga oo afuran oo waxba cunin aan gaajo u dhiman la kulli gaajaan u dhiman anoo dar ilaah u sooman aan gaajada u dhintay waxa dhacay marka kilibkaasi markaan halka marahay marka aniga waxa iga tagay dareenka dham waraysiga ka tagay waa ilmeey kamarada way heysay 3 daqiiqo kadib aan soo baraarugay aniga xabadkayga uu qaysay ilmadiga iga socotay xabadkayga qoysay aad u qiirooday kilibkaas baan social media galiyay kilibkii af Soomaali oo ku hadlay kilibku wuxuu tagay Janiifa Axmedow maalintii ku xigtay saacada ayada ahayd 5 saac oo subaxnimo subax ku xigtay waxa imaaday xaafadda haydii oo dhan oo guurahay kilibka asaga wuxuu sababay in la diiwaan geliyo qaxootigii 7 sano diiwaan gelinta loo diiday dibna loo furo xerada qaxootiga ifatu oo la dejiyo kilibkaas lagu furay ifatu marka la fiiriyo caqabadaha iyo xariyaha sheekooyinka qaar marka tabinayso oo ku dhex ilmaanaysa wad ku dhex murugoonaysa marka aragto waayeel sariiryaal ah oo gogol la'aanta iyo dhar la'aanta haysta simaha ka boqdo hadana gaajo u nafaxaysa waxa weey waa wax nolol aad wanaagsan aad iyo aad u adag marka waa caqabadaha ka jira xariyaha oo dadka inta badan iska warqabin oo laga yaabo inay ku tahay waxyaabo aan ka sheekayna caadi